بسم الله الرحمن الرحيم. حسلام يا مسلمين تدمانتود جرحان شنتي صوماليات وبال رمضان وبش قرآن كسرود دقي إلهي سبحانه وتعالى عماشة حينجا أقبله وحن ما أنت كهاد ليا أرين أنا بدن كجاب سريي واجبنا نقوى إن المضى إصلاحي يوم ماركتي وحي وأنا أين أوران كرنو magacaygu waa amiir maxamed siciid waxda dhaqankaanahay waxa dhacaya gobolka sool ka dhacaya aynu arkayno ilaahay waxaanu ka baryaynaa waa bil ramadaane in ilaahay inaga qaboojiyo arrimaha laascaanood waxaan ku tilmaami karaa garasho garab weyday laascaanood arrinkeeda oo aan doonayo inaan dhowr qodob ka taabto. laascaanood way deganayd, nabad bay ahayd, inkasta oo marar dilal ka dhacaan. dilalkana cid lagula xisaabtamayay iyo cid ka mas-uulahba ay jirtay. waxaa soo baxay magaaladii laascaanood in dagaal lagu baaqay, jigjiga lagu shiray. jigjiga markii lagu shiray garaadadaasu yaahdeen go-aankayga jeebkaa saraanu ku sidanaa, laascaanood ay soo galeen. laascaanood markay soo galeen golihii wasiirada oo joogay aanay la kulmin, odhan waryaana laaya xukuumad baad tihiin oo dalkan idinkaa ka mas-uulahe 15 sannadood dilkan ka dhacayay yaa ka mas-uul ahaa, diida inay la kulmaan, go-aankooduna ahaa dagaal inay qaadaan. dadka 15 laascaanood ku dhimanaya sannadood dhulbahanta qura may ahayn. dowladda somalilan yadaa dhibano ka ahayd oo dadkii mas-uuliyiinteeda habaa la leynayay. puntlandna lama leynahayn, khaatimana lama leynahayn dadka taageersan. dhinacna mas-uuliyad baa ka saaran oo dadka leynayay yadaa laga rab. garaadadii wasiiradii lamay kulmin, hawshoodii abaabulkoodii bay wateen. wixii halkaa ka dhacay dowladda somalilan aad iyo aad bay tanaasul u muujisay, anigoo weliba dhaqanka mucaaradka muuse ku ah, xukuumadda kulmiyo kasoo horjeeda, taageerana ah xisbiga wadani. isma lahayn muuse iyo xukuumaddiisa dulqaadka intaa leeg ayaa ku jira. runtii laascaanood waxay ciidankii qaranka ku abreen idinku dhinta oo shacabka badbaadiya. go-aamay somalilan soo saartay wixii halkaa ka dhacay inay qaadatay. haddaba arrinka laascaanood baan doonayaa xaggay sartu ka qurunta. 3 guruub baa laascaanood kala sarreeya waan doonayaa bulshada soomaaliyeed iyo somalilan baynaan u sheego. qolo waa qolada mashiinka wado jamaahiirta iyo kacdoonka iyo waxaa doontaan ugu yeedha. garaadada oo 15 sannadood meelay wax ka bilaabaan doonayay oo maanta soo dhex raacay, iyo nimanka dabka shidaya oo horumarka somalilan ka xun iyo waddaday qaaday iyo maaragtay sida wax u soconayaan oo mashiinka u sarreeya ee waxaan maamulaya ah. garaadada hal baan leeyahay iyo dhulbahantaba waan ismuujinaya inaan isbiyadhiijin. garaadow ciyaalkan youtubeleyda iyo dumarka qurbaha jooga arrinka faraha noog daaya, dhaha faraha kala baxa. idinkuna cabashada iyo layntii dadkan wixii leynaya aynu kala qaadno. cid baanu 60 san ka saaraynaa iyo cid baan dhulbahantahanimada ka saaraynaa. garaad jaamacow maalin walba waxaad kusoo celcelinaysaa gala dagaalka. taariikh fac weyn baad leedahay, adiga iyo aabbaha ayaa weyaashaaba. wuxuu lahan nacayb ka fogaaday iyo inankaad qalinkiisii ka qaaday aad qoriga u dhiibtay berisaad uga qaadayso way dheeraan doontaa. waxaan leeyahay arrinkaa culimaha loo dhiibo, baadhah dilalkan wixii ka dambeeyey, cabashadana dhulbahanta mucaarad iyo maxaafidba intuu isu yimaado go-aantaana ha ka gaadho dub ha loo dhigo. cabdirasaaq khaliif waxaan leeyahay oo xisbigii wadani aan inta badan taageerayay ah. cabdirasaaqow
talo mar bay ku sheegtay mar labaad iyo ku sheegi nacaybka muuse iyo qarannimada ha isku khaldin qolada dhulbahanta wuxuu sheego kaalintaadii qaado waar muuse waa tegayaa xukuumadda dambe ciro arrinka dib inoogu dhig istaba qabaan ka odhan lahaa dimuquraadiyadda somalilan kursigaaga maalintii lagu saarayey adeerkaay oo mujaahida oo faratoona nacayb kulmiyaad kaga guulaysatay adduunkaa laga hadal hayaa dhaqdhaqaaqii iyo kursigaaga tacabkii laga maray dimuquraadiyadda taalla geeska afrika ma taalo taana cabdirasaaq baan leehay harti baan u soo noqonaya hartiyow arrinka gadaad dhammayn weydeen waxa laascaanood aad ka soo doontaan anugu garan maayo duciidyahan iyo cumar maxamuudow dhulkiina 80% etoobiyaan baa haysta waxaan odhan lahaa kaa markaad etoobiya ka soo qaataan somalilan iyo dhulbahanta u soo gurmada ninka dhulkiisu etoobiya yahay ee maanta le laascaanood xadkii ingiriisku ma jiro dee xadkii etoobiyana ma jiro dheh markan waxaad odhan lahaa gadaa idinka baahan xal haddaad hartinimo ku gurmanaysaan gadaa idinka baahan xal calanka laascaanood ee buluugaahe laga lulayaana xasan sheekh maxamuud maanta al-shabaab buu la dagaalamayaa hadday soomaalinimo tahay iyo hadday hartinimo tahay al-shabaab baa u baahan dhulbahante gaalkacyuu soo gurman jiray oo wuxuu u gurman jiray cabdilaahi yuusuf oo ciidan badan raaciyey maanta xasan sheekh maxamuud shabaab buu la dagaalamaya laascaanood waxaa soo galay anigu ma garan karo waxaan hadalkayga ku soo koobaya aan ku soo gabagabaynaya beesha faqashini beesha qafashini maanta waxay doorkan inay qaadato oo xukuumadda somalilan iyo dhulbahante wada hadashiiso suldaanka fiqashiniga kanu suldaan maaha haddii dhulbahanta maanta u yeedhay SSC buu dhisayey buu hooda markay joogaan war miya kuu yeedheen khaatumo markay samaynayeen talaax ku shirayeen may fiqashina u yeedheen maanta waxaa lagugu yeedhay 3 guddida nin fiqashiniyo loogu daray adna garaadada lagugu qurxiyey anigu maan garan maxaa ciyaarta loo tubay habeenkii haddaan xeelada ku jirin suldaan maanta waxay ahayd inaad somalilan iyo dhulbahante hawshooda dhammayso hadaa ka dhexdhexaad ahaa markan fiqashina waxaan odhan lahaa waar suldaankaa soo bedela fiqashiniyow suldaankaa soo bedela ayaan ku soo gabagabaynayaa dhulbahantana waxaan leeyahay kaa dhimay oo kugu dhimay weeyi haddii aad maalintii la sugi lahaydeen go-aankaasoo dhan wariyaana laayey maanta somalilan oo dhan baa garabkiina taagan waa laydi jecelya qurbajoogga dhulbahante iyo tubleyda iyo dumarka muusanaabaya iyo ragga guryaha ku macaanaaday hal baan faraya lacagtaad north america ka ururinaysaan ee yurub ka ururinaysaan shalay laascaanood waxay u baahnayd cusbo taallo laamiyey u baahnayd biyo macaan bay u baahnayd war maxay ugu bixin weydeen war nin kastow jaamacad baa ilmahaaga kuu dhigtaa jaanis baad heshay aabbaha labada xaas leh ee jaamacadihii lacag ku yihiin ee iskuulkii dhexe lacag ku yahay ee malcaamadii lacag ku leedahay ee sida hooyada yaayada soo korisay ilmaheedaa maanta tacabkeedii ay sugaysay ee aad ku laynaysaan halganku hadduu dhabidkay orday nabadiinna dira ordoo inamadiinna dira oo laascaanood geeya war ilaahay ka baqa oo shilinkaa laydi siiya waa laydi weydiinayaa idinkoo nabad haysta oo ilmihiisu waxbarasho haysto war ka daaya ciyaalka youtubada ahee meelahan ka hadlayo malaa'ig baa garbihiina saaran war kii aabihii la dilow dagaalkaas waa dhammaada waa la isdilaa waa sidii al-shabaab ku bilaabantay koonfurta soomaaliya kii aabihii la dilay kii beer laga qaaday waxaasoo dhan baa isku soo dhex dhuuntay waddadii baa maantana la hayaa war dadka dabadow ka daaya war waa bil rabadaan war meeshaa wanaag ka soo qaada war cabashada iyo dilkii meeshaa ka dhacay dhulbahanta qura kuma dhinto in la baadho culimo in u saarno dhexdhexaad laga noqdo meesha wuxuu ka jiraba la soo saaro qof kasta oo wanaagga jecel waa u diyaar war ilaahay ka baqanla dadka qurbajooga ah ee habeen walba lacagta ururinaya ee tollaydaa leh lacagtii kanada iyo imka ameerika laga diray u dambaysay waa ogna tii yurub laga diray waa ogna war ilaahay ka baqa dadka qixinaysaan
ee barakicinaysaan dagaal wiil baa ku dhashay wiil kuma dhinto xabadda nin yaqaanana kuma degdego waxaan leeyahay aan ku soo gabagabaynayaa waxyaalaha la yaabay waxaa ka mid ah maxamed kaahin baa burburinaya laascaanood markii burburku dhacay ee dowladdii dhexe soomaaliya meesha ka baxday maxamed kaahin laascaanood ninkii dhexda u xidhay buu ahaa inay burburto iyo inay dunto ninkii diiday buu ahaa maanta uu cimri taagan yahay ayaa laascaanood maxamed kaahin burburinaya waxaa loo sheekaynaya waa dadkii labadii ku dhashay nin kale maanta laascaanood burburinayaayo 29 iyo 91 xaggaad joogta garaadada intooda badan xaggay joogeen maxamed kaahin laascaanood waa dhisaamo burburiyo laakiin inuu muuse la dhaliilayo ninka qori muuse qaban karaya isaga la filayo inta maxamed kaahin ogaado ama lagu calaanto xaq baa loo leeyahay isaga salaaman maxamuud aadamka muuse waa ku kacsanahay xisbigiisana ma taageero laakiin arrinka laascaanood wuxuu ka muujiyay dulqaad aad u fara badan ciidanku idinku dhinta buu yiri xabadda isu dhiga ragga dhulbaanta u magacaabay waa wada mujaahidiin ninba nin aan ka dhicin oo dalka iyo dadkaba u naxa waxaa maanta u quudheen inaad tahay cambaasho dila inaad kooro dila fu'aad dila faratoon dila nin kastoo dhulbahanto dhaqaaqaya inaad tahay dila intii somalilan iyo ingiriis la socotay baan ku badbaadeen dhulbahanto markii daraawiisha burburtay maantana ninka dhulbahanto ka naxaya waa inta somalilan la socota waa rag ku dhaca leh oo xaqa dhulbahantay in la dhaco aan diyaar u ahayn waxay diideen inay taleex iyo buuhoodle inta u dhaxaysa madax u noqdaan somalilan oo dhan bay madaxweyne roog cas loo dhigaa qarannimadu waxay tahay bay garanayaan waxaan leeyahay hala dilo iyo lacag hala dul dhigo caqli ma aha dhulbahante dhexdiisana yaa la isku dilin garaadada waxaa la ilaahay ka baqa dib u soo noqda wanaagga ka shaqeeya intaasaan kusoo gabagabaynayaa ramadaan kariim ilaahay acmaasha haynaga aqbalo ilaahay kuu naarta ka xoreeya allah haynaga dhigo ilaahay subxaana wa tacaala somalilan inuu nabad kusoo dabaalaan ilaahay ka baryaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu